marka soomku kuma eega uun ramadaan keliya laakiin markay ramadaan dhammaato sanadka oo dhan waxaa jira soom kala duwan oo ilaa 7 qaybood oo shareecadu inoo jidaysay isbeerna wuu yahay isbeer iyo wax kabaya faralka iyo soomka oo marka ilaahay aakhiro uu adoonka u miisaamo camalka ama soomkiisii haddii wax dhinmaan ila bani aadam nuqsaan lagama waaye malaa'igta wax miisaamaysa ilaahay wuxuu leeyahay bal hadda sunno u eega inuu sunno soomi jiray marka haddii uu qofkaasi soom sunnaa soomi jiray wixii ka dhinmay faralka loogu kabayaa marka fudaysanin cibaado kasta oo faralaba sunnaha raaca salaadu waxay leedahay sunne rawaatibtaynu tukanaynaa sakadu waxay leedahay sadaqa sunno ah soomku soom sunno ah buu leeyahay xajku mid sunno ah buu leeyahay marka cibaadooyinkaa sunnaha oo dhami waa cibaadadaadu inay socotay hirgasho ayay qayb ka tahay oo maaragtay taabo gasho gaarigu markuu soconayo 2 taayir baa loo sameeyaa oo istabniya oo hadduu banjaro mid la geliyo haddana mar labaad hadduu banjaro mid kale la geliyo si safarkuu hagaagu raaxo u yeesho soomamka sunnaha ah waxaa u soo horeeya ramadaan marka laga baxo soomka la yidhaahdo shawaal nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu uhi man saama ramadaana uma atbacahu sittan min shawaal fakaannamaa saama dahr qofka ramadaan sooma kadibna raaciya 6 maalmood soomkood oo bisha shawaal ka mid ah dhinacay doonaan ha ahaadeen ama hor xagga hore ama dhexda ama aakhirka wuxuu ka dhigan yahay inuu soomay sanadkii oo dhan 36 cisho haddii uu soomay maalin walba ilaahay wuxuu ugala mid dhigayaa 10 maalmood markaa 360 maalmood isagoo soomay oo kale ayuu ka dhigan yahay sanad 100 soomku waa nooca waxaa labaad soomka muxaram bisha muxaram la yiraahdo intuu ka kari karayo inuu qofku soomo sanadka islaamka u horeysa iyaduna soomamka sunnaha weeye afdalu siyaam bacda ramadaan siyaamu shahri illaahi almuxaram bisha muxaram ama siyaamu muxaram calaa macna alxadiid bisha muxaram soomka la soomayaa waa soomka u fadli badan buu nebigu sala allahu calayhi wasalam ramadaan kadib muxaramna waa sanadka islaamka bisha uu bilaabmo waxaanay ku jirtaa bilaha xurmada leh ashhuru xurumka loo yaqaano soomka saddexaad waxa weeyaan siyaamu shacbaan waynu soo dhaafnay bishii ka horeysay ramadaan iyadana inuu nebigu soomi jiray sala allahu calayhi wasalam asxaabtu waxay leeyihin jeeroo aanu nidhaahno mala afuriba maayo bisha uu ugu soom badnaa shacbaan bay ahayd si uu carbisu qaato iyo layli nebigu calayhi salaatu wasalaam soomka afraad waa siyaamu yowmi carafa maalinkaa carafo la taagan yahay qofka aan xaajiga ahayn ila xaajiga howl weyn baa u taalla carafuu taagan yahay laakiin dadka kale ee dalkoodii jooga inay maalintaa soomaan iyaduna aad bay muhiim u tahay nebiguna sala allahu calayhi wasalam waxau ihi maalinkaa carafo soomkiisa ilaahay waxaan kaga rajaynayaa inuu igaga dhaafo sanadkii ka horeeyey wixii qofku uu dembi galay oo dhan inuu ilaahay kaga safeeyo soomka shanaad waxa weeye maalinta isniinta iyo maalinka khamiista inuu qofku haddii uu caafimaad qabuu kari karayo labadaa maalmood ku dadaalo soomkii sunnaha ahaa inuu soomo rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam kaana yataxaraa asawma yowma alithnayn waalkhamiis maalinka isniinta iyo khamiista isagaa ku dadaali jiray inuu soomaba rasuulku waxaanu odhan jiray labadaa maalmood waa 2 maalmood oo tucradu alacmaalu ila allah camalkaa ilaahay loo bandhigaa oo camaladay warbixintay malaa'igtu inaga qaadeen ilaahay bay horgeynayaan qof waliba wixii shar uu sameeyey khayr sameeyey marka anigu waxaan jecelahay camalkayga in la bandhigo aniga oo sooman oo warbixintu ay ku tagto hebeloon hadda ka nim uu sooman yahay soomka lixaad waxa weeyaan in bil walba laga soomo 3 maalmood oo walibana fiican inay noqdaan
ayaamulbiid ka maalmaha cadcad 3 iyo 10 4 iyo 10 5 iyo 10 maalmaha cadcad dhexe bartanka sararu shahr maalmaha inuu qofku soomaaba wanaagsano haday isniin iyo khamiis kugu beegmaana aad bay si fiican tahay marka saddex fadli buu iswaafajin karaa qof isniintii iyo khamiistii oo ku beegan ayaamihii cadcada iyo bishii saddex maalmood saddexda maalmood qofku wuxuu ka dhigi karaa maalmo aan ahayn kuwa cad iyo maalmo aan ahayn kuwa khamiista oo waa saddex nooc oo kala gaar ah inaad khamiista soontaa waa nooc gaar ah ayaamaha cadcad inaad soontaana waa nooc gaar ah saddex maalmood inaad bil walba ka soontaana waa nooc gaar ah laakiin wuu isu geyn karaa qofku iyadoo abi hurayra uu ka waramay arintaa wuxuu yiri saddex arrimood uu nabigu ii dardaarmay xadiidku saxiixaynka ku sugan yahay waxa kamid ahaa inaan saddex maalmood ka soomo bil walba saaxiibkay nabi maxamed arrimaha uu ii dardaarmay bay kamid ahaayeen inaan bil walba saddex cisho ka soomo inaad bil walba saddex cisho ka soontaana waxa ay u dhigantaa inaad sanadkiiba soonto waayo haddii la yidhi alxasanatu bicashri amhaaliha wanaagaad samayso 10 jeer baa lagu laabaya haddii la yidhi dee saddexdaa marka siiroo lagugu daro ama sifir 30 bay noqdeen adigoo bil walba soomun bay ka dhigantay marka boqol soon farsamaysan oo sharciyeysan uu nabiguna baray sala allahu calayhi wasalam xataa daruuri maaha qofku inuu isku xidhiidhiyo saddexda maalmood ee maalin wuxuu ka soomi xagga hore maalinna xagga dhexe maalinna xagga dambe inuu kala fogeeyo iyo inuu isku xidhiidhiyaa isagunbaa maaragtay waxay ku xidhan tahay kolba istidaacadiisa iyo siduu karo soomka 7 ama 8 waxa weeye siyaamu yawmin wa fidru yawmin maalinuu qofku soomo maalinna uu afuro waana ku nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam axabu siyaami ila allahi siyaamu daawuud soomoo dhan ilaahay wuxuu ugu jeceliyay soomkii nebi daawuud kaana yasuumu yowma wayufdiru yowman maalinna uu soomaya maalinna uu cunaya waana soomka ugu adag ramadaan cishadii horeysaa kugu adkay maalmaha dambe waad la qabsanaysa oo dheefshiidkii iyo calooshii iyo dheecaamadii soo da-aya wixii waxaa loo sheegaya isbedel baa dhacay waktigii qadada iyo quraacda iyo cashada ifraasaadkii iyo dheecaamadii hala joojiyo dabeedna jawigaagii baa isbedelaya gaajadii waad la qabsanaysa laakiin maalin walba tijaabo cusub arrin aad u adag weeye soomkaasina waa soomkii nebi daawuud buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam soomkii nebi daawuud ayaa sida ahaa waana soomanka ugu fadli badan inagoo mar kale ku celinaynaa haddii lagu weydiiye maxaa u kala farqiya ma alfarqu bayna asiyaami lilfardi waannafl soomka sunnaha iyo ka faralka ah saddex arrimood baynu soo sheegnay mid waxa weeyaan tathbiitu niya laa tushtarad fii siyaami nafl inaad habeenkii soo niyooto shardi ma aha soomka sunnaha ah adigoo aan waxba cunin haddii waagu kuu baryo adoon waxba cuninoo bilaa quraaca gelinka horaad niyoon karta siduu nebiguba sameeyey sala allahu calayhi wasalam soomka faralkii laakiin sidaa ma aha waa inaad habeenkii niyada kusoo qabataa waxaa kaloo u farqiya soomkan la yidhaahdo soomka sunnaha ah waa qofku uu iska jebin karaa isagoo maalintii sooman oo aan cudurba ku dhicin ayuu iska jebin karaa sida xadiidkii bukhaari ku sugnaa uu tilmaamayay qisadii salmaan iyo abidar dhex martay ee qadada uu sameeyey uu yihi waan soomane qadada iska cun uu yihi ilaa aad jebisaad ila cunto anugu dee ma soomay ma cunayo sidii buu ku jebiyey nebiguna waa sugay sala allahu calayhi wasalam arrinta saddexaad ay ku kala duwan yihiina waxay soomka faralka ah uma baahna fasax inuu u qaato inay ruuxa dumar u qaadato markay soomayso oo ninkeedoo jooga fasax uga qaadato soomka faralka ah ama nadar ha ahaado ama kafaara gud ha ahaado ama ramadaan ha ahaado laakiin soomka sunnaha mar hadduu isagu goobjoog yahay hebelow ma soomaabay odhanaysa si aan qoysku khalkhal u gelin xadiidkaasina saxiixayn buu ku sugan yahay nebiguna wuxuu ihi laa tasumi ilmaratu wa bacluhaa shaahid ooridu yay soomin iyadoo odaygeedu joogo amarka waa in la qaato saddexda arrimoodna sunnaha iyo faralku asalkooda waa isku mid ilaa wixii sharcigu ku kala duwan mooyaane marka saddexda arrimood bay ku kala duwan yihin waxaa jira iyaguna 7 nooc oo soonka ka mida ayaamaha ka mid oo la diiday in la soomo iyaduna waa muhiim inaad ogaato si aanad ugu dhicin ciid la soomaabay ciraabanta laba nin baa midna fiqiga yaqaaniya axkaamta
midna wuxuu yaqaana cilmiga naxwada markaa kan naxwada yaqaana carabku ilaashadaa markaa had iyo jeer markuu macnaynayo kan faqiihaay ayuu naxwoolu odhan jiray halkaa waad khaladay halkana waad khaladay faacilkii baad damisay mafcuulkii baad isweydaarisay wadnuhu qabtay cishadii dambuu kii naxwoolaha ahaa ilaa axkaamta ma yaqaana iska soomay ciiddii markay isku yimaadeen ayuu sidiisii ku bilaabay oo wuxuu ihi halkaasi maxay ciraabantay ciid la soomaabay ciraabantay buu waadna wareerisee ciid la soomo ayay ciraabantay macnaha ma garanaysid cilmiga sharciga iyo axkaamta carabkunbaad sixi karaysa markaa si aanay taasi kugu dhicin ayaamaha la diiday soomkooda waxaa ka mida labada ciidood nebiguna calayhi salaatu wasalaam nahyi buu saaray labadaa maalmoode yowm alfidri wa yowm aladxaa waa maalmo la farxayo la dabaaldegayo lama soomayo waxaa sidoo kale ah iyaguna ciidaha raacaya ayaamu tashriiq maalmaha hilbo waradhka hilibkiiba areerin laga dhigaayo muskaa lagu wadhaa iyo xadhiga oo udxiyadii baa la cunayaa oo muqmadii iyo kumbusiya laga samaysanaya nebigu waa saddexda maalmoode ciidda carafo ka dambeeya ayaamu tashriiqi ayaamu aklin wa shurb maalmaha ayaamu tashriiqa la ydhaha ciidda carafo ka dambeeya saddexdaahi waa maalmo wax la cuno oo la cabo oo la farxayo soomkooda waa xaraan xadiidkaa muslim baa wariyey waxaa ka mid a maalinka jumcaha munfaridan sharcigu ma banaynin nebiguna wuu diiday qofku inuu soomo maalinka jumcaha keligii laa yasuum axadukum yowma aljumca ilaa an yasuuma qablahu aw bacdah qofku yuu soomin maalinka jumco kelidii maalmo ka horreeye inuu raaciyo ama maalinka ka dambeeye inuu raaciyo mooyaane isaga laftiisu waa ciiddii usbuuca oo waa la cunaya waa la dabaaldegaya waxaa afraadoo sharcigu diiday yowmu shaki maalinka shacbaan soddonka tahay ee la leeyahy toloma ramadaan baa kowla mise maalinkan shacbaan buu raacsan yahay iyadana rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa diiday laa yataqadamana axadukum ramadaana bisowmi yowmin aw yowmeyn waxaa shanaad isaguna siyaamu dahri inuu qofki sanadka o dhan isku xidhiidhiyo oo uu dhaahdo anigu habeen mooyaane 12 bilood maalin waxbaba cuni maayo waayo dee ciidihii baa ku jira iyo ayaamii shantaha la diiday ayaa ku jira laa siyaama man saama alabad soomba kama uma hagaagin buu nebigu qofka maalin oo dhan yidhaah waan soomanaanaya oo diintu waxay ku dadaalaysaa dhexdhexaadnimada iyo wasatiyada xadgudubna lama ogola gaabisna lama ogola waxa isaguna lixaadoo la diiday yowmu sawmu yowmi sabti munfaridan walxadiidu daciif xadiid daciifaa ku soo arooray qolyaha qaarkoodna laga yaaba inay kor u yaro qaadana yidhahdeen darajatu xusni buu gaadhay maalinka sabtida keligii in la soomo iyadana xadiidkaasi waa diiday laakiin xadiidkaa sugmin waxaa toddobaaduu nebigu diiday sala allahu calayhi wasalam wisaalka wisaalku waxa weeye qofku inuu isku xidhiidhiyo soomkii inuu isku xidhiidhiyo uu idhaahdo maantaan soomaya caawana waxba cuni maayo beritana waxba cuni maayo habeen dambena waxba cuni maayo sida soomkan siyaasigaa soomaad arag ee dadka maxaabiista ah iyo soomaan intay meelaha sonkor gashadaan ama kiniin faytamiina ayay ku tuuraan habeenkii maraan la arkayn markaasay dabeedna odhanayaan waxaanu soonnay soon isugu bixi soo wan dhimanayaa haddaan la isii dayn ama sidaa la yeelin naftiisiibuu ku baacatamayaa markaa qofku inuu habeenkii waxba cuni waayo maalintii waynu soomanay habeenkii baynu wax cunaa qofkii wuxuu leeyahay anigu habeenkiina waxba cuni maayo taana nebigu waa diido wuxuu uhi iyaakum walwisaal xadiidkii bukhaari ha isku xidhiidhinina soomka haddaad diiddaanna ila saxar ayaa laydiin ogolayay macnaa inaad afurkiiyo cashada iska dayso oo aanad suxuurta dhaafin weeye markii ay yidhaahdeen adiguba waad xidhiidhisaaye annaga maxaad noogu diiday wuxuuhi war aniga ilaahay baa cunno iyo cabidi siiya oo ila mid mahidinoo rasuul baana khusuusiyaad baan leeyahay igu dayanina haysdilina marka toddobadaa nooce soomka ka mida mar hadduu sharcigu diiday iyagana waynu iska daynaynaa kuwa horena waynu ku dadaalaynaa waxaa lagu darajoobayaa in danteenna adduunya iyo ta aakhiraba ku gaadhaynaa inaynu sharcigu siduu wax u dhigay u raacno allah ina waafajiyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu